diinta islaamka ayuu qaatay sarkaalkan ka tirsan ciidanka booliiska dalka Mareykanka. ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. kahor nuqulka warbixinta muuqaalka iyaga daawaday waxaan kaa codsanayaa in bogga Cabdulqaadir Xuseen aad ku soo biirto aad follow tiraado muuqaalkana like saarta saaxiibadaada kale ee khayrka jecel leh aad la wadaagto adigoo u sii share gareynaya waadna ku mahadsan tahay tixgelinta codsiyada. sarkaalkan oo ah madow ka tirsan ciidanka booliiska dalka Mareykanka ayaa qaatay diinta islaamka kadib ciidan uu hogaaminayo oo qaabilsanaa ilaalinta masjidkan ammaankiisa. waxaana uu sheegay sarkaalkan in dhammaan waxyaabaha diinta laga seegi jiray ka hor inta uusan soo islaamin ay u muuqanayaan wax mala ah oo ay dadku isa abuurtaan. waxaana uu tilmaamay diintu in aad ay kaga qurux badan tahay dhammaan waxyaabaha kale ee gaaladu ay caabudaan. waxaana uu yiri dhammaan ka hor intaanan soo islaamin waxyaabaha xumaanta ah ee laga sheegi jiray diintu waxay u muuqanayaan wax been ah iyo sidoo kale malo dadku ay iska abuurtaan, laakiin diintu waa wax qurux badan. qofka muslimka ah waa wax xasilooni uu ku dareemayo. aad ayuu u fiicnaan lahayd in mar hore aan soo islaamay ayuu yiri sarkaalkan. ninkan waxyaabaha ka saacidayso muslimiintiisu waxaa qayb ka ah in dhaqanka wanaagsan jamaacada ku xiran masjidkan aad ay u soo jiidatay, aadna ay kala shaqeyn jireen mar walba ammaanka masjidka, isagoo sidoo kale aad ay isku dhaxgaleen dabcigoodana aad uu isu keenay. waxaa sidoo kale aad ugu dadaali jiray mar walba mashaayikhda masjidka iyo sidoo kale jamaacada masjidkan kuwaasi oo mar walba ku dhiirigelin jiray inuu soo islaamo. kadib soo muslimiintiisu farxad badan jacayl iyo soo dhaweyn ayuu ka helay jamaacadii ku xireed masjidka iyagoo oo marxabeynayo sidoo kale ugu hambalyeynayay wanaagga diinta islaamka uu qaatay. farxad ayuu la ilmeeyay ninkan. mashaayikhda masjidka ayaana guddoonsiisay hadiyad qaali ah kuwaasi oo ay ugu talagaleen sarkaalkan. waxaana jamaacada masjidku ay u ballan qaadeen inay ku garab siin doonaan dhammaan barashada diinta islaamka, taasi oo ugu horeysa quraanka kariimka xifdintiisa. farxad ayay la istaageen dhammaan jamaacadu iyaga oo ninkan u hambalyeynaya. haddaba haddii aad ku faraxday soo muslimiinta sarkaalkan la wadaag saaxiibadaada kaliya Facebook adigoo u sii share gareynaya waadna ku mahadsan tahay. ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.